anigu ilaa iminka wax Soomaali orod la hiba ma arag Ethiopianka iyo Kenyaatiga inoogu dhow ee iminka adduunka haysta ee la koolkooliya anigu uma arag inay Soomaali inaba u dhow yihiin waqtigaygeena xaqiiqay ka ahayd oo aynu ogeyn oo anigaaba dee soo arkay oo taagna dee iminkana Maxamed Faarax waynu ognahay waxa uu ku hayo nabadgelyada naxariista iyo barakooyinkiisu haydiin aadeen kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo aanu ku waraysanayno orodyahanka Soomaaliyeed ee caanka Cabdi Bile Cabdi haddaba ugu horeyn waa kuma Cabdi Bile Cabdi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روشة دروا ما تصنتهاي حنمايا اسككني دي waxaan la qorsheyn boo hayo kulan kanayno inaynu kaafiga oo iskaga kulanay marka adri laba kelmadood baan ka qabanayaan aad baan ku salaamaya haddii aan runtii soo koobo de waxaan maleynayaa Cabdi Bile Cabdi dadku magaca iska wadahay waa hayn jireen dadku magaca laakiin runtii malaadii generationkii ama jiilkii magaca yaqiin iska dhamaadaan u maleynaya inta gaadhiga u taqaanun baa soo hadhay anigu markaa waxaan isla taariikhda waxba ku noqon oo marar badan baad ka hadashay yani dadku waa ku daaleen ka daal laakiin runtii waa laga yaabaa imanka de jiilkan dambe inaanay waxba ka ogeyn gaadhiga oo isaga yaqaanin marka runtii haddaan soo koobo magacaygu waa Cabdi Bile Cabdi ku dhashay magaalada Laascaanood dugsigii hoose dhexe inta badan halkaasaan ka galay dugsigii sare gobolka Banaadir ciyaarihii waxay iyagu ahaayeen waxaan mar walba jeclaa oo iyaga salka ka soo bilaabay kubadda cagta waxaan galay naadigii Waxool oo aan kubadda cagta u ciyaari jiray dabadeedna ciyaarihii gobolada ayaan galay orodadii baan galay oo naadiga naadi la oran jiray aan galay inta ka bacdina waxaan uga sii gudbay Mareykanka oo aan 83kii aaday iyo halka jaamacadii iyo inaan orodada ka sii wato aan u tagay intii ka dambeysayna orodadu intii inaan orodkii adduunka qaaday kaasi waxay ahayd 87 84kii Olympicii ciyaarihii finalkan sameeyay oo layga saaray oo liir ciidaad riixday iyo de sanada ciyaarihii jaamacadaha oo aan 2 sano qaaday iyagana 85kii 87kii ciyaarihii jaamacadaha Mareykanka guulaha ciyaaruhu orodadu way fara badnaayeen laakiin taas weyn adduunka qaadista adduunka un baa runtii dadku qabtay oo isku fuuqsatay marka waxa kale yani sheegoodu waxba fara badan uma baahna iyo anigoo marar badan adduunka wax ranking la yiraahdo baa la sameeyaa ama orodka ayaa sanadkan adduunka ugu fiican marka taana sanado badan dhamaadkii sideetamiyadii iyo dhexdiisii ilaa 9-aadkii bilowgoodii waxaan ahaa nin ama kaalinta koowaad adduunka ama inta u dhow mar walba marka guulo badan oo la taaban karo iyo magac iyo sumcad fara badan ummadeena iyo dalkeena u soo hoyatay yani ixtiraam fara badan ku helay adduunkuna inagu bartay intaanay xabadda iyo dagaalka iyo qaxa inagu baran marka waxaan ma intaas uman kaga baxayaa hordhaca iyadoo aynu ognahay in hawl kasta oo la doonayo in laga midho dhaliyo ay u baahan tahay dadaal dheeraad ah ayaan wax ka weydiiyay Cabdi Bile waayihiisii orodka caqabadihii uu la kulmay iyo waxyaabihii farxad geliyay intii guud ahaan waxaan oran karaa sabab fiican buu ahaa kaligeena kuma aan ahayn fikriyan waxay ahayd waqti aanu in dhalinyaro ah himilo ku yeelanay waliba iskaashanay oo aanu garanay
fahma inaanu adduunka wax ka keeni karno aanu dadaalay raggii weheliyey aanu Mareykan wada aadnay waxa jaamac maxamuud aadan karaaciin axmed ismaaciil nadalo علي محمد هفاني إبراهيم عكاش وأنا بدنا رجع فرا بدن بانوهين runtii meel fiican wada gaadhay ninbad kaalin hasii gaadho marka waqti bay ahayd aan runtii rag dhalinyaro ah ku garanay arinta in meesha fursadi jirto qaaliya aanuna hibo iyo talent leenahay tacliinta scholarship-ka ah ee orodka lagu helo ma hadal scholarship ku siinayo waa lugahaga scholarship ku helaysaa aan nirwarayno halka tacliinta u doonano laakiin tan muhiimka ah iyadana waxay ahayd waqtiga waxa noo dhaga furnaaday oo arinta nala qaatay oo nala fahmay wasaaradii markaa jirtay oo runtii isbedelkana dad yar baa sameeya waqtiga runtii dad badan oo gacan qabtay ama dhinaca taagna ha jirin oo way jirayaan way fara badnaayeen laakiin saddex nin ayaa runtii la taaban kara oo iyagu waqtiga aan anagu taagnayn iyagu furanka ahaa wasiirkii Allah u naxariistay Miraca Waara Jaamac wasiirka ahaa Maxamed Saalax Charles oo isagu orodada haystay wasiirka waxa la shaqeyn jiray Ahmed Abdi Daahir Ahmed Sheel runtii saddexdaan nin iyo intii markaa mabda la fahantay markii dambe la qaadatay intaas iyo dhalinyaradayadii isku duubnay intaas oo isku xiran baan horta arintu ahayd marka qolada fahamkeedii iyo annagii oo nimi iyo dalka oo ahmiyad markaas ciyaaraha ay lahaaba sideedaba baa iskaashatay wasaaraduna wasaarad la qiimeeyay ahayd oo runtii waqtiga aan imanaynay yani waan xusuusanaa wasiiradii hore oo laga sii sheekayn jiray waxa kamid ahaa Muuse Rabiile Good Allah yarxama waxa kamid ahaa Faarax Wacays Duule marka waad arkaysaa wasiirro tayalihiin inay soo mareen in ahmiyad laga lahaa inay meeshu runtii dhisnayd had iyo jeerna waxa wax dhisaaba waxa weeye team ama ummad in wada shaqaysa haday seesho waxbay qaban kartaa miro oo kale nin runtii aad iyo aad fiican bahayo dadaalay waqtiga yagaan maartay abaal badan iyo ugu haynay ciyaaraha iyo markaa guushii iyadoo inagan taabanayba aniga iyo rigii la socday guulo waaweyn baanu ka gaarnay taydiha ugu sii weynaato aan taabanno oo waxa weey madax meel laga salaaxa madax meel la taabto madax ka sareysa ma jirto taasa madaxa soo taabatay laakiin caqabaduhu runtii way farabadeen caqabadaha su'aasha ku dartay caqabaduhu runtii wax laga sheekayn karo ma aha Soomaaliduna runtii intaan ka ogahay Cabdi Bile iyo orodkan iyo guusha dibta iyo duruufaha oo u soo maray runtii waxay haba yaraatee fikrad ka haystaan ama fahmi karaan marnaba ma baaha umana dhawa laakiin taasiyadu ama saasay iska ahaan ama mar baan isleeyahay bal buug yar iyo wuxuuna qalin iyo warqad qaadatid oo xoogaa yar ka qortid marka caqabaduhu waa wax laga gudbo anaga ka gudubnay oo guusha keenay muhiim ah caqabaduhu laakiin waxa muhiimka ah waxa himilada inaanu dareen qabnay inaanu itaalka yaga iyadoo aanay wax fara badan jirin information ka adduunka ugu muhiimsan iyo aqoonta maanta la haysto iyo adduunku sidoo isu dhaxgalay iyo soo soo koobmay intaas ugu weynayd aanan haysan Soomaaliya aan TV lahayn waxba lahayn meel aadan wax ka arkayn inaanu himilo yeelanay himiladaas iyo kalsoonidii iyo dadaalkii
iyo go'aamadii adkaayaannu qaadanay oo aan qaatay annagoo dhammi intayadii ordaysay taas ayaa runtii muhiim ahayd wasaaraddii guntiga u xidhatay oo nala fahantay oo nala shaqaysay ayaa muhiim ahayd marka dee himilaa suuro gashay bini aadamkuna noloshiisoo dhamma waxay ka bilaabantaa fikir yar iyo himilo loo sara joogsaday lagu dhaqaaqay la isku dayey in laga midho dhaliyo loo midaysan yahay isku aragti laga yahay marka aasaaska guushuna waaba intaas marka alxamdulilaah duruufta himilada ka weyneed iyadoo intaas uman kaga baxaya ugu dambayntii cabdi bile cabdi ayaan weydiiyey sida ugu habboon ee dhallinyarada soomaaliyeed ee jecel ciyaaruhu ay uga midho dhalin karaan himiladaasi iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga doonayo dhallinyarada iyo weliba dawladda wallaahi dhallinyarada wax badan lagama odhan karo mar walba dadku niyadu waa la iman karaan mar walba fursada wuxuun way iska jiri karaan laakiin noloshu waxay ku fiican tahay inay wax qorshaysan tahay in wax bilow iyo dhammaad aad arki kartid oo ay tahay isku xidhan tiina innaga maanta ma taallo marka isboortka ama ciyaaraha guud ahaan haddaan ku noqdo waxa weeye waxa ugu horeeya muhiimadda ugu weyni ma aha dhallinyaro maaha shacab maaha waa dawladdu hadday iyadu la timaado faham inay fahamto ciyaaruhu ama isboortku guud ahaan faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay waa intaa inay fahanto dabadeedna ay ahmiyad siiso markaasunbay waxaan shaqayn karayaan dhallinyaradan iyo dadaalkooda iyo tababaro iyo waxaas waa iska dambeeya marka hore waa in la fahmaa waxani waa wax bulshada faa'iidada iyo faa'iidada bulsho isdhexgalkeeda caafimaadkeeda waxa weeye nabadaynteeda heshiisyadeeda dibudhiskeeda yani sportku waa wax qayb kasta ka qaata marka waxa weeye kuwa markay xoog la saaro oo dawladdii ahmiyad siiso dabadeedna tiraahdo inagu kiciya ya wixii kale sahal bay noqonayaan wixii kale markaa waxay noqonayaan wax iskaba kooban waxaad u baahan tahay dhaqaale waxaad u baahan tahay dad aqoon iyo xirfad leh waxaad u baahan tahay dhallinyaradii oo la soo jeediyey oo la wacyigeliyey oo iyagiina markaa talent leh waaba inahaas okay innagu markaa saddexdaa marka la eego kow talentkii waa haysanaa ilaahay hibu siiba orodkoo kale ilaahay hibu inoo siiyey hadda sannado badan baan kenya waa soo maray intaan ordayey iska badaayaan la ordayey dee etoobiya iminka ilaa 5 sano iyo baan markaan dalalkan kale tababarayaanu joognay aanu tababarkan ku samaynaynay anigu ilaa iminka wax Soomaali orod la hiba ah ma arag Etoobiyaanka iyo Kenyaatiga inoogu dhow ee iminka adduunka haysta ee la koolkooliya anigu uma arag inay Soomaali inaba u dhow yihiin waqtigaygeena xaqiiqay ka ahayd oo waynu ogeyn oo anigaaba dee soo arkay oo taagnaa dee iminkana Maxamed Faarax waynu ognahay waxa uu ku hayo Soomaad garan ayaan la Suleymaan oo Jabuutiya marka inagu horta taalankii iyo hibadii waynu haynaa aqoontii baa ku soo hadhay aqoontiina waaba waxa aynu maanta adduunka ugu fiicannahay anaa jooga for example salahan jaamac Karaacin oo waxayagii baa nolosheedii baa macallimiin ku dhamaatay oo dalalka aan mushaharka yaryar ka qaadano oo ugu shaqeeya oo hadaad eegtid
jaamac isagu coach ahaan waa noogu weyn yahay waa noogu macallinsan yahay anuba macallinii ahaa intaan wada ordaynay ka sokow iminkana dee olombiga algeria bilada haba olombiga u soo qaaday Ethiopia dahab u soo qaaday Suudaan buu ciyaarihii adduunka dahab u soo qaaday ya gabadha Ethiopian-ka uu tababaraa iminka 7 rikoor bi adduunka jirisay 7 rikoor bi adduunka jirisay Ethiopia inta soo biladood dahab u keentay war biladaha kan marka aqoonteeni waa taa adduunkii kale oo dhan de biladii waxa xaabinaysa oo waxa weeye la iska guranayo marka inagu talentkii iyo aqoontii waynu haynaa dhaqaaluhu waa waxa ugu sahlan in la raadin karo marka waa ahmiyad dhaqaale talent iyo aqoon ayna intii badnayd haysano markaana loo gudbayo oo dhalinyarada iyada wacyigelinteeda iyo isku dubariidkeeda iyo waxaasi waa waxaan waxba qaadanaynba marka taasi wax u baahan weeye in hab dawliya ama dalka oo dhami ay noqoto wax la isku dhiirigeliyo runtii anigu dhowr sano ka hor hadda waa 5 sano ka hor mar baan isiri bal dhulkii soo yar eeg marka xamar aad iyo aad bay isaga wali u wareersanay bal intanuun markaa labnayd waqtigaas Puntland Somaliland ilaa kilalka saddexdaba waa tegay madaxweynayaasha arkay bal taliyo tusaale war arintaasi waa arin muhiim ah oo runtii aad u baahantiin in ahmiyad siisaan runtii waqtiga waxaan soo dareemay inaanay ahayn wax diyaar loo yahay inaan diyaar loo ahayn inaanay ma aragtay xagga dawladana ka suura galahayn shacabkuna iyagu weligoodba sidaa uguma baheelanayn oo inta badan qofkii wuxuu kooranaya war wax la cunaa la leeyahay ciyaaraad ka sheekaynaysa oo maba garanayaan inay ciyaaraha laftoodu kuwa keeni kara wax la cuno sababtoo bulshada inay caafimaad hesho oo nolol hesho oo dalkii sumcad helo oo international community-ga aad soo jiidatid maalintan orodka qaaday maalintaas uu adduunku maabka wada eegayayo Soomaaliya akhriyay ogaanay cidibada ma garanayn marka insha Allah wuxuunaan rajaynaynaa in Ilaahay waqtigeeda keeno runtiina dhalinyarada looga faa'iideeyo waxa runtii dhalinyaradu dalkeeni waxay noqotay waxa kaliya ee aan moodin inaan dan iyo heelo laga lahayn iyo heela inaan runtii laga lahayn iyadaadan badday dawlado iyo cid aad badan oo aad ku canaananaysa aanay jirin laakiin xitaa de maamulada yaryar ee jira waad is oranaysaa maxay si gaara ama dhalinyarada xag sporti xag waxbarasho maxay programs yaryaro in dhalinyarada yaryar dhiirigeliya ama noloshooda wax ka bedela ama himiladooda wax ka bedela ugu sameyn waayeen waana inaga maqan tahay wali insha Allah de khayrun ban rajaynaynaa in Ilaahay keeno waqtiyada soo socda waqtigii wayna ugu yar dheeraaday laakiin insha Allah mar walba niyad wanaagsan iyo samir iyo dulqaad iyo inay wax hagaagayaan de waa la rajeeyaa lagama niyada marna daraska la iskama dhigo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij kooban oo aanu ku wareysananay orodyahanka Soomaaliyeed ee caanka Cabdi Bila Cabdi waxaan halkan idinka soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha tan iyo kulantii dambe nabad geliyo